xubno iskugu jiray xildhibaano odayaal siyaasiyiin iyo aqoon-yahano kuwaas oo dhammaantoodba ka soo jeeda gobolka Awdal iyo xubno ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Boorama ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay hoteelka Rays ee magaalada Boorama. xubnahan shirka jaraa'id ku qabtay ee iskugu jiray xildhibaanada golaha baarlamaanka iyo xildhibaanada golaha deegaanka iyo siyaasiyiinta iyo duqay ka soo jeeda magaalada Boorama ayaa taageero u muujiyay shirkii 23 February ay dawladda Ingiriiska u qabatay qaybaha kala duwan ee maamulada Soomaalida ee ka dhacay magaalada London. shirkaasi oo dawladda Ingiriiska u qabatay kooxaha Soomaalida ama qaybaha kala duwan ee Soomaalida magaalada London. shirkaasi oo ay ka qayb galeen maamulka Soomaaliland oo hogaaminayay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Siiraanyo ayaa xubnaha shirka jaraa'id ku qabtay hoteelka Rays ee magaalada Boorama ay taageeradooda u muujiyeen. xubnahaasi oo ay hormood u ahaayeen laba xildhibaan oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee Soomaaliland oo laga soo doortay gobolka Awdal. xubnahaas oo kala ahaa xildhibaan Maxamed Barkhad Miigane iyo xildhibaan Axmed Madar Siyaarag. xubnaha halkaasi oo ka hadlay oo ay ka mid ahaayeen xildhibaan Axmed Barkhad Miigane iyo xildhibaan Axmed Madar Siyaarag waxay si aad ugu dheeraadeen taageerada ay u hayaan shirkii ka dhacay February 23 magaalada London ee uu ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siiraanyo. waxaan u aragnaa shirkaas inuu u hiiliyay ummadda reer Soomaaliland. waxaan u leeyahay uu u hiiliyay wuxuu soo koobay uu soo dhaweeyay wax muddo dheer iyo socod dheer qaadan lahaa in degdeg loo kala food qaado. laba arrimoodna muu isdhexgelin uu kala dhigay oo go'aamada ka soo baxay ka ugu cad ugu muhiimsan ee la sheegi karay waxa weyn in Somaliland oo state gaar ah oo madax bannaan iyo Soomaaliya oo Soomaalida koonfurtu inay wada hadal isugu yimaadaan. haddaan ree awdaltiina intii foodad dhacayay ama codayn dhacaysay tii aad ugu tira badnaydeen weeyaan waana idinku ambalyeelaya waxaana leeyahay ha lagu adkaysto maanta. runtii waxa weeyaan markaan leenahay beesha Jibril baa halkan yani ka soo jeedinaysa beeshii oo dhan meesha ma joogto waa initiative sidoo kale leego qoraalkeeda gobolkeena ale calankii waa kiliin shaqeena kaale dimuqraadiyadda iyo xorriyadda maanta la haysana kaale laakiin inagu waxa soo dhan sameynay dadweynaha noqon maayo laakiin sadkeeni iyo cadkeeni iyo wixii xaqan u haynaan helo uu ka maqayay dadka gobolka xukuumaddu ku maqayay xukuumadda si wada hadala iyo nabadgelyo ayaan uga doonaynaa. waxaan inii sheegayaa 22 xildhibaan ee gobol annagoo u dhan iyaan qornay baahida gobolku wuxuu tabanayo madaxweynaha qornay waan hor fadhiisanay wixii oo qoraala ayaan u yeedinay u dhiibnay positionska naga maqan cadkaygiinu nahayn dadkay waxay tabanayaan wax weyn inuu yahay waxaan leeyahay waan kugu dhowraynaa soo akhriso haysa baan nidhi arrimaha naga soo dhex galay waxna soo dagaalkii iyo arrintii gobolkeena waxyaalo badan soo galay arrinta halkii bay noo taagantay waxa weeyaan gobolka wuxuu xaq u leeyahay dawladda kaga daynayno way siin dadkii وخصم ولا هذا يتشي يو أفكار يو قراد ما كذا قادين إما ها يعني حمان يو وعدمين يو كذا قادين وحن علينا ناخد في منه وحي حقنا ناخد في منه وحي عدالة حمانا وحي نو صود دمين منه حمان نقسمين منه وحن لا يمكن قبلك هاو نشيء يا وينو تعالى مدحوينا 3 hours ما فردني ورال بانو قديدني وان كسو بلدي بوري أرنتين هالكي بيقولوا تاجن هنا وان نقول نسخون قنينا ووحدة سيدا عدد كله حق وهدونيا يعني كهر دونيا نكو صدق بلاد بمكايستي وان سنة تايم بدن وينو تعالى لكن kala duqeydii halkaasi ka hadashay ee taageertay shirkaasi lagu qabtay magaalada London 23 bishan ayaa iyagana waxa kamid ah hadaladoodii sidan guusha u soo hoyatay ee ku taageerayna madaxweynaha Maxamed Maxamuud Siiraanyo oo ku dhaqaaqay isagoo si hufan intuu u fikiray ugala hadlay hadii ugala tashaday dawladdiisii oo labadii xisbi qaran ugala tashaday xisbi qaranada saddex xisbi qaran oo gol labadii gol ugala tashaday oo rag adila xulasho fiican oo dawladdiisii ka mid ah ka haystay oo guusha uu ka gaaray London oo intaas oo dawladood u hordhigay maskaxdiisii iyo maskaxdii kale ku darsaday oo la tashadayba guusha uu ka soo hooyay noxorkan aan isku qabanay jirka anagoo taafo taageerina weeyay Soomaaliland maanta geedi socod hore u socotay
إن شاء الله تعالى مرنا ويكسو ويديسا ويحي ماركتي محاكو هذا عند ورنتني إن ورنتني بحالك هذا صار هذا هالكن تيفو هذا هالكن تيفو وحبا ماركتي محاكو هذا عيا وحوي ودريجي وحوي ماركتي محاكو هذا وكان في عمد ونسميه أورو مرة halkaas aanan ku daba joognaa kana aan baqaar aan dhuleeyahay horta taa waan ku taageeraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wadadii cadayd baan cagta saarnay Allah inoo adkeeyo wassalaamu calaykum wa rahmatullahi in dawladda Jabuuti isku madanahay in loo maro gabadh baan ku soo gabagabeynay Chairmanadu Ismaaciil kamid yahay Siiraayi kamid yahay Sayid kamid yahay ila rajaal kamid yahay Soomaaliga Chairmanadi hadaa jila jacaylkooda jawi wacan Jabuuti leedahay jaar la tabayay maskaxdii Shabaaniya waxay heshay horumarkeedii ummad isku jiilaya waxaan ahlugiye jiilkeeda jeegaa sideedii waa inaan ku xidhanaa jilow sideedii waa inaan soo jiidanaa inaan helo jacaylkooda intaas aan ku soo waa markii ugu horeysay ee xildhibaano ka soo jeeda gobolka Awdal iyo taageerayaashooda ay muujiyaan taageerada ay u hayaan shirkii ka dhacay bishan February 23 magaalada London oo ay ku qabtaan magaalada Boorama. Haashim Sheekh Umar Good, Somalisat TV, Boorama.